sidaan ku sheegay horta waxaan dhiganayaa iskuul waxaan jiray 17 sano fasalka 9aad baan ka baasay ka 10aad baan markaa galay waxaan isticmaali jiray Facebook oo aad baan ugu badnaa waxaan iska baranay inaan wiil baan iska baranay wiilkii adigu muddo ilaa 6 bilooda baan wada sheekaysanay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلته يا قصة هيني ما أنت قصة ورتي آد يا آد بوجود منتها رهنتوا قصة آد وحنون بدن هذانا قصتها قاركود وحواي قصة لسوء ألفي لكن تنوى قصة دبا una eegso looga sheekeynay qisad dabata wala kuna taabanaysa in badan ma ka soo hadalnay qisado ka dacwadanada carabta qisadahan waa qisad ku dhacdayna Soomaaliyada iyadana ka sheekaysay barnaamijkan runtii waan iska daawanayay qisadu aad ba u dheereed part 1 bay lahayd oo meelaha 40 daqiiqo malaha part 2 ka badan part 3 waan dhamaystay one day ba qisadan dhamaystay marka qisadan waa sidii isla qisadii waxay shabahdaan buu eeg tahay aan ka soo sheekeynay qisadii ku horeysay waana soo daawan kartiin waa dadka iska baranaya baraha bulshada aan isku lahayn aqoon guud ahaaneed aqoon hoos ahaaneed aan isku lahayn just baraha bulshada iska baranay inantan waa inan yar runtii say noo sheegtay inan yar bay hayd 17 sano jirtay waxbarasho dhigan jirtay aad bay qisadu u dheertay laakiin xoogaha waa soo koobana waa soo yareynana insha Allah waxbarasho iskaga jirtay gurigooda bay joogaysay waa la baxnaaneynayay waa la xanaaneynayay wax culays wax dhibaato midna may aqoon wiil ka da'weyn oo gayaankeyga bay isbarteen baraha bulshada iska barteen barta Facebook iska barteen way jeclaatay guur buu ka dalbaday familygooda u sheegtay way isguursadeen iyadu waxay joogtay Soomaaliya sababna wuxuu joogay Itoobiya kadib waxaa dhacday inantii iyo inankii inay midoobaan Itoobiya iskugu yimaadeen inkastoo imashadii Itoobiya imaneysay inanku imaneysay ay arrimo badan soo martay oo aha inay familygay ka soo khabayso inuu maadaama aad uga weynaa oo soo ku yiraahdo maadartay aqliga ka bedelo ku yiraahdo familygay ha u sheegin inay maadartay familygay ka soo duumato dhibaatooyin badan inay soo marto inay jeelal soo gasho dhowr jeer la soo xidho maadaama wax sharci ah ay haysan ay Itoobiya ku soo gasho aakhirtaankii Itoobiya degeen hatta markay soo baxaysay ay gabadhu sheegayso waxay ku soo baxday guri uu u buuxiyay ay guri khaas iska galayso laakiin markay u timiday xaqiiqadii markay bilaamaysaa waxa xaqiiqadu ka bilaamayso hasaawihii baraha bulshada iyo jacaylkii tirada badnaay waa la soo dhaafay inantii waxa dhacday inay gurigii gasho inanka gurigoogii waa sida caadada Soomaalida inta badan mar ama way dhacdaa inay qoyska cusub ay la galaan inanka hooyadii marka waxay ka tabanaysaa dhibaatooyin badan inayna taas xoogahaas sida guriga loola dhaqmo sidii gabar guriga shaqaale ka hoo kale inuu isagu maqnaan jiray banaanka ku maqnaan jiray runtii qisada markaa taabanaysa marna waa murugoonaysaa marna maasha Allah inatu way ka qoslinaysaa wallahi marka qaarkood markay qisada ka sheekanayso kelmadda aan ilaa waa kelmadda markay dhahayso odaga wiilka dhalay meel dukaan buu haysanayay weelashii waxa gado waa la iigeeyo waxa la dhahay weelashii waa lagu soo adeega markaas xabadan baaqoliga qaado xabadan kan qaado ruumi ma haysatay ruumigan waa qaali kelmadahaas waa kelmadaha oo xoogahaas ka qoslin kara laakiin qisada waa qisada runtii ku taabanaysa kadib inantii waxa dhacday inay xaamilo noqoto ay aad u bukooto tacadigu sii bilaamo waxa guriga ka caawiyo shaqadii ay weydo cuntada xataa ay karinayso sheegayso waxa la dhihi jiray maxabaad ka badisay cuntada saan bay tahay wuxuu laga sheegi jiray in aad loo bahdili jiray macala haybsooc يعني متى dad keena dad noo keeni lahay Soomaalidu way isqoloqolaysaa sideedaba dad noo keeni lahay qofna la dhaqan hadaan noo keeni in lagu hiraado waxa dhacdaynati inay umusho maasha Allah in wiil yar ay dhasho la jeexay hadaana markii la jeexay ay xanuunsatay shaqooyin tira badan ay qabatay umula
wax caawiyo uuna jirin daraadeed inay u sii xanuunsato tacdaro la sii kacdo ayaa dhacday. markaa inantii waxay tiri waan ka soo kabmay maskixiyan. dabcan qofka isbedel baa ku dhacay oo jacaylkan sidiisaba hadduu xumaan lagugu bedeliyo adaygu kaa baaba'aya. bilowgii waxay sheegtay waxaas oo dhan waxay u samayn jirtay kalgacal iyo jacayl ay u qabto saygeega. laakiin markii dambe waxaa ka tira bartay xanuunkii iyo hadalkii iyo xumaantii. waxaa dhacday fursad ay heerkan kaga socoto inay raadiso, inay u sheegtay tiraada ayeedii baa xanuunsan, heerkaygii baan u socdaa. heerka iyo heerkuna ismay aqoon. kadib way diideen, waxay ku dayeen hadaa soconaysa soco, laakiin wiilkayga waan kaa reebanaa. awalba keligaa baa noo timid, keligaa soco. iyaduna way diiday inay wiilkayga ka tagto. waxay tiri cabaar baan sii fikiray, cabaar baan sii joogay ilaa ay markii dambe ay keento inay wiilkii ku qanciso. safar Canada baan xareysanaynaa, Nairobi waa inaan tagno oon sharci qaxootiyeed aan qaadano. waa sifada quraata amba dariiqa quraata ee halkan Ethiopia hal mar heerka uga socon lahayd. ugu dambeyntii inantii heerka way ka tegaysaa, iyadiyo ilmihii yaraa way israacayaan. buuqiya wixii way ka nasanaysaa. waana soo daawan kartiin qisada channelka, waxay ku jirtaa iyadoo dhammaystiran Ridwaan Isaaq. waa qisad aad u dheer, dareen gooniyana. waa mahadsantihiin. waa walaashiin Bilisa Barwaaqo. haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha naga ilaawin inaad channelka subscribe noo saartay. mahadsanid daawada.